rabadaan wanaagsan dhageystayaal meel walba aad joogtaan wararka maanta waxaa ugu waaweyn 10 ruux oo ka tirsan al-shabaab oo lagu dilay dagaal ka dhacay duleedka degmada Xudur ee gobolka Bakool. nin isku qarxin lahaa goob ay ku sugnaayeen madax ka tirsan ahlu sunna oo lagu qabtay magaalada Guraceel ee gobolka Galgaduud. ciidamo taabacsan maamulka Puntland oo la wareegay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag. Taliska booliska degmada Walaweyn oo soo qabtay rag iibiyo waxyaabaha maanka duur. xukuumadda Soomaaliya oo cambaareysay gantaal maleeshiyada Xuutiyiintu ay la damacsanaayeen dalka Sacuudiga. xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in haddii la qarxiyo mas'uul ka tirsan dawladda isagoo la baarayo ay mas'uuliyaddiisa qaadanayso dawladda Soomaaliya. golaha wasiirada maamulka Puntland oo kulan ka yeelanaya xaaladda gobolka Sanaag. dhinaca dibadda wararka aan kaga haynana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May oo la filayo in ay ku dhawaaqdo iscasiladeeda. iyo dawladda Ciraaq oo sheegtay in ay dhexdhexaadinayso xiisadda ka dhex taagan Iran iyo Mareykanka. waxaa inaga xasuusina channelkan inaad subscribe dhahdaan like iyo share si aad u heshaan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. waxaad maqasheen qaar ka mid ah qodobadii wararkeena ugu waaweynaa waa Khamiis 23 bisha shanaad ee May sanadka 2019 wararkaasi oo faahfaahsan u diyaar garooba. ku dhawaad 10 ruux oo ka tirsan al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay dagaal ka dhacay duleedka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. ciidamada militariga Soomaaliya ee ku sugan deegaanada gobolka Bakool ee koonfurta Soomaaliya iyo sidoo kale dagaalyahanada al-shabaab ayaa waxay ku dagaalameen duleedka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya ay weerar ku qaadeen fariisin al-shabaab ay ku lahaayeen duleedka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. waxaana la sheegay in aysan gaarin saldhigga al-shabaabku ay wadada u galeen dagaalyahano ka tirsan al-shabaab. halkaa waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo sidoo kale kuwa dagaalyahanada al-shabaab. dagaalyahanada al-shabaab ka tirsanaa iyo sidoo kale ciidamada militariga Soomaaliya ee weerarka qaaday. sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gobolka Bakool oo ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysay dagaalkaas waxa uu sheegay in dagaalyahanada al-shabaab ay ka dileen 10 dagaalyahan. waxaana sidoo kale uu sheegay in ciidanka dawladda hal qof uu ka dhaawacmay hal kalena uu ka geeriyooday sida sarkaalkan uu sheegay. markaan ciidan hadda midka laga dilay mana daawo baasi yahay inta kalena waxaa maasabaan way imaadeen wax tusaaida kalama madleen halkan may weerar baa qaadan oo weerar oo gaadma oo dook weerar ee bahayti magarad waa gartay ilaahay muqaadirkiisa uu baaburo oo kolonyo dhamaysu ku galeen 11 Xudur waxaa maarjay dhinac bari bakeeda qurax ka soo baxay. dagaalka dhexmaray dagaalyahanada al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada militariga Soomaaliya ee ku sugan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa imaanaya xilli ciidanka dawladda Soomaaliya saacadii la soo dhaafay howlgallo kala duwan ay ka wadeen degmooyin fara badan oo ka tirsan gobolka Bakool oo ay maamulaan ciidamada militariga Soomaaliya. wararkaynu ka helayno degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay ku waramayaan in maanta halkaasi munaasabad ahlu sunna ay ugu magac dartay maalinta shahaadada oo halkaasi ka socota. ay ciidamada ammaanku gacanta ku dhigeen in doonayay inuu isku qarxiyo goobta ay munaasabadaasi ka socoto ee ay joogeen madax ka tirsan maamulka ahlu sunna. munaasabadan ayaa ka dhaceysay bartamaha degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud waxaana la sheegay inay bilaabatay barqanimadii maanta. munaasabada oo socota ayaa waxaa la sheegay isla markaana goobta ay ku sugnaayeen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka ahlu sunna wal jamaaca iyadoo oo xilligaas goobta ay ku sugnaayeen ciidamo iyo waliba saraakiil ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa maamulka Galmudug. ciidamada ayaa waxaa la sheegay inay gacanta ay ku dhigeen nin qorsheynayay in uu weeraro mas'uuliyiinta ka tirsanaa maamulka ahlu sunna wal jamaaca iyo saraakiisha ka kala tirsanaa maamulka Galmudug ee ku sugnaa goobta. dadka shacabka ah ayaa waxaa la sheegay inay farmuqeen nin laga shakiyay kaasi oo ay ka soo muuqdeen fiilooyin iyo waxyaabo kale oo dadku ay ka shakiyeen. intaas kadibna ciidamada ammaanka ee goobta joogay ayaa lagu wargeliyay iyaga oo durbaba gacanta ku dhigay ciidamada iyo dadkii shacabka ahaa ee goobta joogay. dhammaan dadkii ka qaybgalayay munaasabadan oo ahlu sunna wal jamaaca ay ugu magac dartay munaasabada golaha shahaadada ee ahlu sunna wal jamaaca ayaa dadkii ka qaybgalayay ee goobta ay ku kala carareen kadib markii ay argagaxeen markii loo sheegay ninkan gacanta lagu dhigay. sarkaal ka tirsan maamulka ahlu sunna wal jamaaca oo lagu magacaabo Ismaan Cali oo la hadlay dalsan
ayaa waxa uu sheegay in munaasabadan ay bilaabatay barqanimadii maanta islamarkaana ay tahay mid loogu magac daray munaasabada golaha shuhadada ee ahlusunna waljamaaca, laakiin waxa uu diiday inuu si faahfaahsan uu uga hadlo qaraxa. waa ninka la sheegay in lagu qabtay waxyaabaha qarxa, isaga oo sheegay inay baaritaano ay ku socdaan. waxaa ku sugan wasiiro madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug, wasiiradii, xildhibaanadii, saraakiishii sarsare dowlad goboleedka galmudug, dhammaan maamulka ayaa ku sugan, mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan. sida runtii abow si waxay uga socdaan aada iyo aada u qiimo badan. ciidamada oo maraya laamiga oo maaragtay salaam bixinaya oo si qurux badan u socda, bulshada qaybaheeda kala duwan iyo maaragtay bulshada oo meel kasta galmudug joogta iskaga timid, oo si wanaagsan ayuu ka socdaa xuskaas walaalow, aada unan maaragtay u socdaa. sawiro laga soo qaaday goobta munaasabadu ay ka dhaceysay oo ahayd degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa muujinayay nin ay sidaan qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale dadka shacabka ah oo lagu sii xareynayay gaari cabdibile ahaa, waxaana la sheegay inuu ahaa ninka la sheegay inuu isku qarxin lahaa goobta munaasabadu ay ka dhacday. ilaa iyo hadda mas-uuliyiinta maamulku si faahfaahsan umaysan hadlin ninkan iyo weliba ujeedada uu ka lahaa weerarkaas uu ku doonayay inuu isku qarxiyo munaasabada ka socotay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. taliska booliiska degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa soo qabtay rag iibinayay walxaha maanka dooriya kadib howlgal laga sameeyay degmada gudaheeda. taliyaha booliska Wallaweyn ayaa waxa uu sheegay in markaasi ay soo qabteen rag ka ganacsanayay waxyaabaha maanka dooriya howlgal ay sameeyeen. taliyaha oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in markaasi dadkaas la soo taagi doono sharciga isla markaana lala xisaabtami doono. alxamdulillahi rabbil caalamiin. waxa daliil oo ka jira wadada noqoto laga gudaha noqoto مجران لبدأ جبهة ولا سبيا بناك ولا سبيا ما واحد عن سوق المجران هذه وحياة هو بعد ما دوريس استعماله هو سواء هلا إذا وضعوا هذه إن شاء الله وحنا خارجين دون هذه لا يرادوا وحكى لها بدبات السوق ولا مجران جبهة مجران ولا هنا لا أفرق هو لا ما وحكى لها بدبات ولا كجير مجران بيني لا سوق جري بدان سوق جري تعطل سوق جري بلاي نقابي لا حد هذا أن كان نخش مجران هذه ما بقول سميا هذه ما بقول سميا جودها ولا سميا بناك إذا هو قدر سميا كسميا جودها بريس كسميا برسول كسميا لا جو أرود بي وين إذا بقول سميا وحسبار لي إلى مجران ما كنت أنا كده taliyaha ayaa intaasi ku sii daray in markaasi ay jiraan rag kale kuna howlan yihiin sidii ay u soo qaban lahaayeen. waxa uuna baaq u diray dadka kale in aan markaas lagu ganacsanin waxyaabaha maanka dooriya, isla markaana waxa ugu baaqay dadka deegaanka inay ka shaqeeyaan nabadgelyada. xildhibaan daahir amiin jeeso oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in mas'uuliyiinta ka tirsan dawladda iyagoo la baaraya ay qaraxyadu haleelaan ay mas'uuliyadda qaadanayso dawladda Soomaaliya. hadalkiisa ayaa waxa uu ku soo beegay kadib markii shalay haweeney ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya iyo ilaaladii la socotay weerar lagula tilmaameysaday agagaarka diljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo ciidamadu ay ku leeyihiin bar control oo lagu baaro gawaarida galaysa gudaha madaxtooyada Soomaaliya. waad mahadsantahay adeer oo intaas oo mas'uuliyiin in lagu celiyo cadawga muxuu ahaa oo soo dhax galo waa nasiib darro weyn. hay'adaha amniga waa inay bedelaan qadiyada muxuu ahaa baaritaanka noocan inay bedelaan waa uu baaqaya, waayo meesha ay bartilmaameedsanayeen waa meel muhiim u ah nimankan. marka intaas oo mas'uuliyiin hal meel isugu celiyo oo la yiraahdo waa la diinbaara oo ay shaqeeradooda ka dagaan oo ay baabuurta ku xiraan wax aad iyo aad looga fiican yahay. waxaan leeyahay waxa weeye oo aan rabaa hay'adaha amniga inaan la wadaago mar haddii qadiyada noocaas ay fashilantay oo ay ogaadeen nimankan in muxuu ahaa meelaha kontaroolada waxa lagu celiyo ay yihiin dadka muhiim ku ah dalka oo xarumahooda u shaqo tagay ay yihiin, waa inay muxuu ahaa ay bedelaan qadiyadaas. runtii aadaan ugu nahay meelaha qaar oo mas'uuliyiin intaas la eegyo dagaal aan ku jirno waxa aan la dagaalamaynin ay yihiin dad muxuu ahaa
kalarkeena le baabuurka aan wadano wato muxuu waxa ay ku dagaalamayeen ayna meel face ayna ka dagaalamayeen waxay ka dhex dagaalamayeen shacabka dhexdiisa uu yahay arrinta qaabkii wax loo baaray waa fashilantay waa inay qadiyad kale ay yimaadeen hadda dhiimay noocaas culimaada laakiin hay'adaha amniga mar damba baabuur qolayo ku jirto oo baaritaan sugaysa ayaa la qarxiyay hadday soo yeerto mas-uuliyadeeda iga qaada xildhibaan daahir amiin jeeso oo ka tirsan baarlamaanka federaalka iyo madaxweynaha dalka mareykanka Donald Trump ayaa bilad abaalmarin ah waxa uu siiyey askari horey u dilay arday Soomaaliyeed. madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu bilada ugu sareysa booliska dalkaas guddoonsiiyey askari lagu magacaabo Alan Hurjko kaas oo horey u toogtay muwaadin Soomaali ah bishii November 28 sanadkii hore. marxuumka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Allah u naxariistay Cabdirasaaq Cali Kartan oo 18 jir ah kaas oo arday ka ah jaamacadda The Ohio State University ee ku taala dalka Mareykanka. ardaygaas ayaa la sheegay in uu 13 arday ka mid ahaa ardayda ay isla dhigan jireen jaamacadda ku dhaawac toray halka uu qaar kalena jirsiyay gaarigii uu ka hor istaagay isna oo toogasho ku dilay. muuqaal ay dowlad goboleedka Ohio baahisay ayaa waxa ay muujinayeen iyadoo uu askariga toogashada geystay sheegayo in uu ciirsaday Cabdirasaaq Cali Kartan kuna amray in uu iska dhigo mindida balse uu isaga ku joogsaday kuna soo weeraray mindida waa sida hadalka loo dhigay. askariga waxa uu ku tilmaamay in uu toogashada ku dilay ardaygii mindida ku hubeysnaa inkastoo askarigaas awoodi karin in uu ardayga si xeeladaysan mindida uga dhigo loona baahiyay in uu qaato go'aanka sida ugu fudud ee ardaygaas lagu dili karo. dhinaca kale munaasabada uu madaxweyne Donald Trump xalay abaalmarintaas bilada ku guddoonsiiyey askariga oo lagu magacaabo Alan Hurjko oo 13 askari kalena waxaa lagu qabtay aqalka cad ee looga taliyo dalka Mareykanka. bilada abaalmarintaas oo loo yaqaano bilada madaxtooyada ee Florida waxaa la siiyey askar kasta iyo saraakiisha booliska ee loo aqoonsado in ay naftooda khatar u geliyaan badbaadinta dadweynaha. xukuumadda Soomaaliya waxa ay cambaaraysay isla markaana war-saxaafadeed ay ka soo saartay gantaalo kooxda Xuutiyiintu ay ku weerareen magaalada barakeysan ee Maka al-Mukarrama. war-saxaafadeed maanta ka soo baxay xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa si kulul waxa lagu cambaareeyay weeraradii gantaalada ahaa ee la beegsaday magaalada Maka al-Mukarrama ee dalka Sacuudi Arabiya. qoraalka ka soo baxay xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa lagu yiri xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxay cadeynaysaa in beegsiga xaramka ee xurmada leh uu yahay mid daandaansi ah oo aan la aqbali karin. qoraalka xukuumadda Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu yiri xukuumadda Soomaaliya waxay muujinaysaa in weeraradaasi gantaalada ay u aragto faldambiyadii dabeecad shirqool oo ka dhana goobaha barakeysan. sidoo kale qoraalka waxaa lagu yiri Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxay bogaadinaysaa ciidamada difaaca cirka ee Sacuudiga oo ka hortagay labada gantaal maalintii Isniinta 20 bisha May. labadaasi gantaal waxaa ka sii horeeyay ayaa lagu yiri qoraalka laguna qarxiyay hawada magaalada Daif kuwaas oo ku jihaysna magaalada Maka halka kuwa kale lagu burburiyay hawada magaalada Jidda. si kastaba war-saxaafadeedkan ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli dhawaan war-saxaafadeed kan la mid ah dowladda ay soo saartay ay ku cambaaraysay weeraradii kooxda Xuutiyiinta ay ku qaadeen dhuumaha shidaalka ee dalka Sacuudiga taasi oo dowladda Soomaaliya ay ku tilmaantay inay ahayd fal argagixiso. markana wararka Soomaaliya ka baxsan Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa la filayaa in ay ku dhawaaqdo iscasilaadeeda. wargeyska The Times ee ka soo baxa magaalada London ee dalka Ingiriiska waxa uu maanta qoray in Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Theresa May ay berrito ku dhawaaqi doonto inay ka tagi doonto xafiiska looga arrimiyo dalka Ingiriiska kadib markii laga hor yimid qorshaheedii ka bixitaanka ururka midowga Yurub ee EU-da. wargeyska waxa uu qoray in Theresa May ay go'aankeeda iscasilaada ah ay ku dhawaaqi doonto kadib marka ay la kulanto Graham Brady oo ah madaxa guddiga 1922 ee kooxda xisbiga muxaafidka ah ee ka tirsan aqalka odayaasha dalka Britain. Mr May oo
oo 63 sano jir ah waxaa la filayaa inay berito ku dhawaaqdo in ay ka tagto xafiiskeeda number 10 kadib markii ay wasiirada xukuumadeeda ay kacdoon ku sameeyeen qorshaheeda ka bixitaanka UK ee midowga Yurub. ugu dambeyntiina Ciraaq waxa ay qorsheynaysaa in ay dhexdhexaadiso xiisada ka dhexoogan dalalka Iiraan iyo Mareykanka. dowladda Ciraaq waxa ay shaaca ka qaaday in ay wafuud u kala diri doonto dalalka Mareykanka iyo Ciraaq si loo qaboojiyo xiisada colaadeed ee ka dhaxaloosan labada dal. Ra'iisul Wasaaraha dalka Ciraaq Caadil Cabdulmahdi ayaa waxa uu sheegay in ay waajib ku tahay inay dhexdhexaadiyaan labadaasi dal si looga hortago dagaal iyo in heshiis laga gaaro arrimaha ay isku hayaan dhinacyadu. waxa uu tilmaamay in maalmaha soo socda ay wafuud u kala diri doonaan labadaasi dal taasi oo dadaal loogu jiro ama dadaalkaasi oo lagu doonayo in lagu xalliyo xiisada taasi oo uu sheegay waxa uu sheegay inay hoosta ka xariiqayaan in Mareykanka iyo Iiraan ay doonaynin in ay dagaal ku dhameeyaan arrintooda. Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxa kale oo uu tilmaamay in uu dalkiisu doorka dhexdhexaadintaasi ka gali doono taasi oo uu ku tilmaamay waxa uu sheegay in ay dhinaca kale jiraan dalal doonaya in ay sii huriyaan xiisada u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan balse carabka kuma uusan dhifinin dalalkaasi u ololeynaya dagaalka labada dal. baaqiisa ayaa waxa uu kusoo beegmayaa 2 asbuuc kadib markii xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo aan booqasho aan la sii shaacinin uu ku gaaray dalka Ciraaq isagoo madaxda dalkaasina kala hadlay xiisada kacsanaanta ah ee Mareykanka iyo Iiraan. khiyaartina daawatay war wixii dalka iyo daafiisa inaga soo gaaray oo aad kala socoteen Taah Media waxa inaga xasuusina channelkan inaad subscribe dhahdaan like iyo share si aad u heshaan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya.